السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. marwo uu ka geeriyooday ninkeeda ugana tagay laba wiil oo yaryar ayaa shaqo ka bilowday isbitaal kana noqotay kalkaaliso si ay u koriso carruurteeda. labada wiil kan weyn wuxuu dhameeyay jaamacadda, kan yarna wuxuu ku jiray sanadkiisii saddexaad ee kulliyadda. intii ay ku jirtay korinta ilmaheeda waxay ku qasbanaatay inay rahanto gurigeeda, cidna uma aysan sheegin arrintan ilaa wiilkeeda weyn midkaas oo taqi baarina u ah hooyadiisa u sheegay inuu u baxayo safar dibadda ah, shaqana ka bilaabayo halkaas, fursadda ugu horeysana uu dib u soo celinayo gurigooda. ficil ahaan 2 sano kadib guriga waa la soo celiyay, magaciisa ayayna ku qortay iyadoon u sheegin walaalkiisa ka yar kaasoo dhameeyay jaamacadda isla markaasna aroos galay isagoon la tashan hooyadiis. waxaa ku dhacay maamada cudurka sokorta, waxay ka fadhiisatay shaqada waxayna iskala joogtay wiilkeeda iyo xaaskiisa, laakiin wiilka iyo xaaskiisaba uma ayna dulqaadan maamada, wayna dhibsadeen ilaa ay la gaartay inay seexiyaan qolka lagu keediyo cuntada. maamada way u adkaysan weysay inay ku noolaato qolkan, waxayna ku tiri wiilkeeda meeshan iga bedel. wuxuu ula hadlay si kibir ah kuna yiri meeshan meel ka wanaagsan kuma heli karo. maalmo yar ka bacdi waxaa arrinta ogaatay maamada dariskeeda, wayna u turtay waxayna u diyaarisay qol si fiican loo hagaajiyay. hal isbuuc ka bacdi wiilka ayaa u goodiyay dariskooda una sheegay inuu dacweynayo haddaysan hooyadiisa u soo celinin asagoo u cabsanayo sumcadiisa. maamada way ka soo tagtay dariska waxayna soo raacday wiilkeeda, wuxuuna u kaxeeyay oo uu dejiyay daarta waayeelada. ma uusan soo booqanin mana uusan soo wicin muddo dhan 3 bilood. marka hooyadiis ay soo wacdana kama uusan qabanaynin ilaa hooyada markii dambe ay wacday wiilka weyn una sheegtay xaaladda ay ku sugan tahay iyo sida uu la dhaqmay wiilkeeda yar. wuxuu ku yiri waxaan imaanayaa 3 bilood ka bacdi, haddana waxaan u soo dirayaa lacag saaxiibkay si uu u iibiyo guri halkaasna aad u degtid. way faraxday maamada wayna u ducaysay wiilkeeda weyn inuu alla xafido subxaanahu wa tacaala una daa'imiyo nicmada. sidoo kale waxay u ducaysay wiilkeeda yar in alle uu hanuuniyo si aysan ugu arkin waxa ay dhibsato. maamada waxay u guurtay guriga uu iibiyey wiilkeeda. inta aysan bixin waxay ku tiri maamulaha daarta waayeelada, hadduu kuu imaado wiilkayga oo uu kaa weydiiyey ku dheh hooyada way geeriyootay, wax badan ayay ku soo wacday mana aadan ka qabanin. wiilkii yaraa ee maamadu dhashay wuxuu yimid daarta waxaana loo sheegay inay dhimatay hooyadiis. wuxuu murugooday murug daran, wuxuuna soo xasuustay sida dhibka laheyd ay ku soo korisay hooyadiis isaga iyo walaalkiisa iyadoon cid kale u sheeganaynin kaalmana weydiisanin. wuxuuna ogaaday sababta ay faqriga ugu jiraan asaga iyo xaaskiisu inay tahay hooyadiisa oo uu ka saaray guriga iyadoo murugaysan. waxaa soo laabtay wiilka weyn, wuxuuna u tegay walaalkiisa ka yar una sheegay inay isaga baxaan guriga asaga iyo xaaskiisa maadaama guriga uu iibsaday dibna u soo celiyay, xaqna aysan u lahayn inay daqiiqad keliya ku sii noolaadaan. waa uu ooyay wiilka yar una cudur daartay walaalkiisa, wuxuuna u sheegay inuu furayo xaaskiisa, midaas oo ka dambaysay in maamada guriga laga saaro. laakiin waa uu ka laabtay go'aankiisa markuu soo xasuustay in xaaskiisu uur leedahay. laftirkeedu way qiratay gefkeeda wayna ooysay, waxayna sheegtay inay dulmisay maamada, laakiin waxay ku dhaaratay in maamada hadday dib u soo noolaato ay u adeegayso inta ay nooshahay. kadib markuu ogaaday wiilka weyn isbeddelka ku dhacay walaalkiisa iyo toobadkeenkiisa iyo shalayga uu ka shalaysan yahay wixii uu sameeyey iyo siduu u laasimayo salaada, qiyaamka, quraan akhriska iyo sida asaga iyo xaaskiisa ugu ducaynayaan maamada, ayuu u sheegay in maamada ay nooshahay lana joogto gurigiisa cusub. labadoodana wuxuu u kaxeeyey gurigiisa. wiilka yar markuu arkay hooyadiis waa uu farxay, waa uu dhunkaday, waana uu xambaaray. maamada iyadana aad ayay ugu faraxday wayna cafisay labadooda. xaaskana waxay madaxa ka dhunkatay maamada aad ayayna ugu cudur daaratay. qisadan haddaa ka heshay fadlan like saar, bishaar action subscribe dheh oo ka mid noqo dadka ku xiran. fadlan subscribe ta ka baqiilin, aad ayaad u mahadsan tahay.